dalka Jarmalkana waxa lagu soo afjaray khilaaf kala dhex galay jahliyada Somaliland ee ku nool dalkaasi. munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka laguna soo afjarayay khilaafka jaaliyada Somaliland ee dalka Jarmalka oo sanadihii ugu dambeeyay soconayay ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxaana mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay nasiib darro ku tilmaameen fadhiidka ku yimi safaaradda Somaliland ee dalka Jarmalka iyagoona dhaliil u jeediyay safiirka safaaradda Somaliland ee dalka Jarmalka Mustafa Yusuf Ismaaciil baaqna u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inuu wakiil cusub u soo magacaabo dalka Jarmalka u hambalyeynaya dhammaan bulshada reer Somaliland dal iyo dibadba doorashadii quruxda badneed inoo qabsoontay sanadkan lagu doortay maayarada oo ugu horeeyo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan maayarka magaalada Burco isaguna hambalyo ayaa leeyahay Cabdirasaaq Hiiro reer Berbera oo awal bar maayar rasmi lahaa mar labaad iyo Cabdishakuur Ciidin iyaguna hambalyo ayaa leeyahay maanta waxaan isoo imaanay kolidee in badan ayaa la imaanay alxamdulillah horta way suurta gashay waxa akliyata adduunka kaga tagaysa waa magac laba sanadood ayaan jaaliyad soo hogaamiyay maanta waxa ii suurta gashay maadaama dad Jarmalkuna iska noocyo badan iyo dadka wax aan wax weyn iska dhigayaan mar walba laba jaaliyadood mar walba waliba qof halkan ku dhashay ayaa soo afjaray khilaaf jiray dadku inta badan horta waxay aaminsan yihiin dadka halkan ku dhashay inaanay dadkooda dhaxgelin horta anigu alxamdulillah maanta waxa ii suurta gashay khilaaf baan soo afjaray rag waxay garan waayeen ayaan anigoo gabadha halkan ku dhashay wallaahi soo afjaray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland codsi ayaan halkan uga diray dalka Jarmalka boqolkiiba 90 waxa jooga dhalinyaro uma taagayno kulba oday daale in loo soo magacaabay waxaan ka codsanaynaa madaxdayada inay noo soo magacaabaan dhalinyarada quruxda badan ee Jarmalka jooga ee active-ka ee anigu aan ka mid ahay sababtoo ah oday daale wuu daalay dhalinyaro loo baahanyahay wadankeena waxa hogaaminaya ama waxa wax ka dhigi kara waa dhalinyaro boqolkiiba 90 Jarmalka waxa jooga dhalinyaro ma fahmiyo waxa ay si ka noqotay oday daale korbalna loo soo magacaabaya safiirkii Somaliland imka ma joogo wuu daalanyahay odaygaasi ha iska nasto dhalinyaro kala fogeysay marka aan xaaladda ay ka soo baxnay gudoomiye Muuna oo jaaliyada garabka aan ka tirsanaa kamid ahayd wax qabad badanna samaysay dadaal badanna samaysay qof social oo active ah oo aad muddo dheer dadka tacab badan gelisay ku xanuunsanaya ku waalan ku xidhan ku loo turjumo ku warqad loo akhriyo dhammaan bulshada reer Somaliland ka caawinay in badan baan ka shaqeeyay laakiin noomay suurta galin alxamdulillah تيني هل كان كتير هيسن إسقاط قبسي كده ويسوق عليه عبد الشكور هذا كو باني ينكي لكن أنا قلت له نحن حاد كوان كلاي لبعتذر إنه ويسوق عليه يضو سيران سود وين أنا نسكو كلا قيب سمايت برتمها محيه تولي فرنفو أنو ضد كلا دماناي جاليدو أي كلا جيستي
marka mar kastaba anagu waxaan jecel lahay Somaliland oo mid ah Somaliland oo ah hal haddaynan hal noqono waxa ma qabsan karno sidoo kale mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxa kamid ahaa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo wadani ee dalkan Jarmalka iyagoona dardaaran u soo jeediyay gudoomiye Muna Maxamed Saleebaan kuna ammaanay waxqabadka jaaliyadda muddadii ay halkaasi joogtay xafladii ka horeeyay laftigeeda dardaaran u baan muujinay haddaan xisaabta mucaaradka nahay waxaan u sheegaynaa marka koowaad bulshada Soomaaliland mucaaradii maxaafad bay soo baahan tahay midnimada iyo walaaltinimada waynu ku khasbanay oo wadan bay naga dhaxaya bulsha naga dhaxaysa dhaqan bay naga dhaxaya qaran bay naga dhaxaya dastuur bay naga dhaxaya ku kala tagayno meela taasi waxa weeye oo waxaynu wada leenahay xafladan haddaan u soo noqdo madasha sharafta leh amaan ta koobaad iyo mudnaanta koowaad waxaa siinayaa qoyska ay ka soo jeedo Muna qoyskeedu iyadoo qoys mujaahidiin ay yihiin ayay waxay la jihaad labaad ka gashay inagoo reer Soomaaliland haddii dib soo eegno gender balance halkaynu ka marayno haweenka oo golayaashii qaranka aynu soo saarnay haweenku ka baqayeen ayay iyadoo jaaliyada haweenku ku matasha qoodhay halyeynimo iyo gabadhnimo inay qoodho wixii rag qoodho waayeen halkan ba laga sheegay wax kale ku garan maayo waxaan dhahdee waxaan leeyahay waa guruujo gabadha sacabka loo tumo haddii garuujo gabadhi nala joogo waxaanu leenahay saacadda waxaanu ku haynaa gudoomiyaha jaaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka wali jamhuuriyadda maan maqal moogta kulmiyaha haddaanu nahay aad baan ugu dheeraynaa xagga waan soo dhaweynayaa gudoomiyaha inanta ah ee sida fiican loo ammaanay de kulli waxba ma hadhin amaanteeda Soomaaliland tu kala ugu daraya waxaan leeyahay kulmiye adigana inta in ka badan buu ku sii amaanaya waana arki doontaa kulmiye ku abaal mariyo haddii la ka dhigo waa yalla mudakar MMTV Jarmalka